shirkan dib u heshiisiinta ee maanta lagu qabtay magaalada Cadaad ee xarunta ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Galmudug oo hordhac ah qorshe dawlad goboleedka Galmudug oo ku doonayo in deegaano badan lagu qabto shirar dib u heshiisiineed kuwaas oo la isugu keenayo beelaha wax kala taban ee ku dhaqan deegaanada Galmudug shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliin ka tirsan labada gole ee dawlad goboleedka Galmudug maamulka degmada Cadaado odayaal dhaqameed waxgarad xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay wasiir ku-xigeenka dastuurkii dib u heshiisiinta Galmudug Maxamed Xayir Nuur waxaana uu faahfaahin ka bixiyay qorshaha maamulka Galmudug ee ku aadan arrimaha dib u heshiisiinta dad kasta oo wax kala tirsanayaan maamulka Galmudug wuxuu ku talagalay in uu dhexdhexaadiyo oo ay ka noqdaan wixii dhacay xaladhalay ka noqdaan haddii aan dadka la dhexdhexaadin oo wixii dhacay aan meel la iska dhigina wax ma wada qabsan karaan maamul goboleedka Galmudug dadka degan wax qabsan karaan taa awadeed marka maamulku geed dheer iyo geed gaaban wuxuu u fuulay sidii arrintaas xal looga gaari lahaa waana maantana waa bilowga ah oo lagu bilaabay Cadaado lagu bilaabay wayna socon doontaa insha Allah ilaa ay ka dhamaato way socon doontaa Maxamuud Carab Caalin oo ka mid odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa goobta ka hadlay waxaana uu soo dhaweeyay dadaalada dib u heshiisiinta ee dawlad goboleedka Galmudug ee wadii isagoo sheegay in ka dhaqan ahaan ay kaalintooda buuxi doonaan waa marxaladii labaad oo kaliya oo ka dhimaneed 12 beelood inay heshiiyaan si dhab ah u heshiiyaan dhinac wada jeestaan Cadaado way diyaar bay u tahay inay gogosha iyo mas'uuliyadda iyo soo dhaweyntaas madaxdoodii dawladdu ay iyo shacabka ay wakiilka ka yihiin ay u soo jeediyeen aadaan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol aan soo dhaweynaynaa waan aqbalaynaa waan qaadanaynaa ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo shirkan dib u heshiisiinta maanta ka furay Cadaado ayaa sheegay in shirar la mid ah kan maanta Cadaado ka furmay dhawaan ay ku qaban doonaan deegaanada degmooyin ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug hadda barnaamijkan aan ugu talagalnay wuxuu ka dhici doonaa magaalooyin badan saa la socotaan Galnisoor oo kale waxay ka mid tahay meelaha aan ugu talagalnay in qabaa'ilada Soomaaliyeed oo wadagi jiro dhan ay isugu soo noqdaan oo laga wada hadlo arrinteedii ayadana saas oo kale uga furmi doonaa Cadaado sidoo kale oo kan hadda aan maanta furayno dhankaas iyo caawdo dhinacaas ayagana waxaan rabnaa inaan ka furno marka meelahaasna waxaan rabnaa qabaa'ilada iyo dadka bulshada meelahaas degan oo dhan inay isku yimaadaan oo arrimahaas maaragtay ay ka wada hadlaan oo runtii si dhaba maaragtay looga wada hadlo runtii shirkeenan maanta waa noo furan yahay adinka waxaa idinka rabaa in aad noo soo jeedisaan oo noo sheegtaan habkii maaragtay muxuu ahaa loo bilaarin lahaa oo dadkaas dhan isugu keeni lahaa iyo waqtiyada ugu habboon iyo siday noqon lahayd iyo howlahaas maamulka Galmudug ayaa wada dadaalo ku doonaya in dib u heshiisiin oo ku dhex dhigo beelaha wax kala taban ee ku dhaqan deegaanada dawlad goboleedka Galmudug Daahir Faarax Ahmed TV-ga Kalsan Cadaad